أبوكر حسن وحو هلي صدن يا صدح عد حلقة عمري وهلي لو بقول أفرتن يا لبا عد dadka degan maamulka koonfur bare ee Soomaaliya diintooda iyo deegaankooda iyo dadkooda ina ilaaliyo waa igu wallaahi waa igu billaahi mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh musharaxiinta dhammaan irgada qiimaha badan ee barnaamijkan muddada dheer soo socday ka soo qayb galay waxayna leeyahay marka koobaad ku soo dhawaada hoolka doorashooyinka ee hoos qaboobe oo runtii intiina meesha fadhida maanta aad la socoteen meesha ay ka imaad meeshii uu soo maray iyo borosayska uu soo maray waxa sharaf weyn noo ah inaan maanta midhihii intaas oo dhan aan u wada joognay inaan gabagabadiisii iyo gunaanadkiisii aan marayn anigoo ah guddiga doorashooyinka waxaanay cadaynaynaa haddaan nahay guddiga doorashooyinka inaan qaban doono ama inay qabanayno doorasho daha furan oo xalaal ah oo xor iyo xalaal ah waxaan codsanayaa dhinacyada ku tartamaya qabashada kursiga maamulka koonfur bari inay ilaaliyaan nidaamka inay dhowraan anshaxa inay u hoggaansamaan natiijada ka soo bixi doonta guddiga doorashooyinka doorashadu ma aha colaad ma aha kala fogaansho laakiin doorashadu waxay muujisaa rabitaan waxay muujisaa midnimo waxay muujisaa horumar iyo dimuqraadiyad iyo badhaadhe runtii hoolkan aan maanta fadhino waa hool in badan aan ku soo shirnay wax badan lagu soo lafaguray dadka hoolka fadhiya irgada ee 275taana ay go'aansadeen inay doortaan maamul cusub oo ka shaqeeya aayahooda iyo danahooda runtii waqtiga kooban owgiisa waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo barnaamijka waxaan geli doonaa doorashadaas oo aan rabno inaan boroseyskeeda inaan iisii sheego sina hadhow inaan maaragtay in ugu qaldamin waxaan rabnaa doorashada 275 irga ah ayaa halkan fadhido waxaana u tartamaya kursigaas laba musharax baa u tartamaya waxaan rabnaa inay doorashadeena ay noqoto qaab gacantaaga annagoo u fiirinayna waqtiga lagu jiro muddada dheerayd ee aan soo halgannay waqtigoo dheeraaday dartiisa annagoo u fiirinayna maxaan markii irgada u sheegayaa kana codsanayaa inay nidaamka ilaaliyaan una hoggaansamaan hadhow markii codaynta ay dhacaysana qof walba musharaxa uu arko inuu macnaha uu koonfur bari u badbaadinayo inay gacanta u taagaan dadka degan koonfur bari ina si daacad ah u shaqaynayso ma ku wallaahiya inaan u shaqeeyo dadka degan maxaa la yiraahdaa maamulka koonfur bare ee Soomaaliya diintooda iyo deegaankooda iyo dadkooda ina ilaaliyo waa igu wallaahi waa igu billaahi ma ku tallaahiya waa igu tallaahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته